السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيحة عيب أيا كان نحضي حرونتا حالنا مجال عاصمة مقدشو وحانا halkaasi lagu canaantay xubno siyaasiyiin ah oo rajo ay ka lahaayeen shacabka Soomaaliyeed in ay u noqdaan hogaamiyaal dalka hogaamiya dadkana hogaamiya xilli ay iyaguna ka dacwoonayeen shakhsi kale ama mas'uuliin kale oo Soomaaliyeed oo xil u haya dadka Soomaaliyeed. haddaba maxaa looga baaqsan waayay looga maarmi waayay in Soomaalida ay iska dacwooto ay u dacwoodaan kuwa la yiraahdo beesha caalamka. haddaba soo dhawow muuqaalkan haddii uu ku soo gaarsiiyo gudbi lay garee share garee oo la sii wadaag asxaabtaada. waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xog aan ku helnay in xarunta xalane ee magaalada caasimadda Muqdisho maanta aad loogu ihaaneystay lagu canaantay lagu fadeexeystay wax ceeb ahna ay ka soo gaartay rag siyaasiyiin ah oo dalka iyo dadkaba la rabay inay hogaamiyaan rajo laga yaabo inay ka lahaayeen shacabka Soomaaliyeed iyaga oo raadinaya hogaan iyo xil iyo mansab iyo kursi ayaa maanta waxa canaantay kuwii ay u dacwoonayeen ugana dacwoonayeen muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed oo xil u haya dadka iyo dadka iyaga oo la xaajoon kara la fariisan kara la sheekeysan kara kala doodi kara xitaa haddii waxyaabo waaweyn la isku hayo ha yeeshee waxa maanta ka dhacay halkaasi waa ceeb iyo ihaano shacabka Soomaaliyeed u soo hoyatay una baahan in shacabka Soomaaliyeed meel ay uga soo jeestaan waxaan dushooda lagu sameynayo iyaga sharafkoodii masiirkoodii jiritaankoodii magacoodii iyo afkoodiiba lagu dilaayo. waxaa ogaanay in rag siyaasiyiin ah oo uu ku jiro Xasan Cali Khayre uu ku jiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarkeeda ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo rajo weyn ay ka qabeen shacabka Soomaaliyeed in ay u dacwoodeen xubnaha la yiraahdo beesha caalamka iyaga oo sheegaya in ay diidan yihiin doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto in la bilaabo oo ay ku doodayaan in waqtigeedii aysan ahayn. su'aasha mudan in la isweydiiyo waxay tahay goorma ayay mudan tahay marka iyaga ay bilaabaan miyay mudan tahay mise xilligan ayay mudan tahay in la bilaabo oo la tijaabiyo heerka la gaarsiin karo doorashadaasi. waxay sidoo kale ka dacwoodeen in dastuurka qaybo ka mid ah la qabyatiray oo iyaga aan lagala tashan. waxay kaloo ka dacwoodeen in shirkii madasha wada tashiga qaran loo bedelay xisbi hal dhinac u janjeera. intaas oo dhan markii laga dhageystay ayaa la ihaaneystay lagu bahdilay halkaasina sida ilmaha yar oo kale lagu canaantay oo la yiri waa inaad anaga naga warsugtaan marka idin wacno noo imaada soo degdega mana jirto qof soo daahi karo waana amarkeena ayaa loogu daray sida xoguhu ay sheegayso. waxaana la faray in ay ka warsugaan beesha caalamka oo aysan qaadi karin wax tallaabo ah in aysan qaadi karin wax tallaabo ah in aysan qaadi karin ayaa lagu amray taas oo ah ceeb iyo ihaano qof masiirka Soomaaliyeed in uu hogaamiyo dal hogaamiyo dad hogaamiyo madax uu noqdo in qof kale oo asaagiis ah oo wadan kale ka soo jeeda nuucu doon ha ahaadee in uu ihaaneysto oo uu kala gorgortamo dalkiisa iyo dadkiisa iyo sida uu la macaamilayo siyaasiga kale ee xilka haya ee waqtigan jooga iyo in lagu amraayo in aysan tallaabo qaadi karin. taas Soomaaliya waa wax ku ceeb ah waana waxay u keeneen raggan siyaasiyiinta ah ee waqtigan jooga. haddaba kulanka wuxuu ahaa dacwo oo saf dheer ayaa maanta lagu jiray Cumar Cabdirashiid oo taariikh dheer leh marka la fiiriyo aabihiis ayaa ka mid ahaa dadka dacwoonayay ee xubnahan beesha caalamka u dacwoonayay. waxaa meesha fadhiyay madax kale oo Afrikaan ah oo Soomaaliya ku maadeysanayay raggan siyaasiyiinta ah oo madax kale ka dacwoonaysa. haddaba xaalka Soomaaliya ayaa ah mid aad iyo aad u sii xumaanaya 4 sano kastaba marka ay dhamaato waxaa la abaabulaa wax lagu yeeray xubno mucaarad ah
mucaarad adduunka waa uu ka jiraa laakiin ma ahan sida waqtigan Soomaaliya ay u fahmeen ragga siyaasiyiinta ah ee xilka u raadinaya qori in la soo qaato qayb ka mid ahan siyaasad ahaan waxaa kaloo 4 sano kadib markay dhamaato la diidaa nidaamka doorasho ee waqtigaasi dadka madaxda ah ee doorashada inay qabtaan loogu talagalay ay keenaan qof kasta iyaga ka mid ah wuxuu sheegay in dastuurka uu qabyatirayo haddii la qabyatirana waa waxa hadda qilada ay ka yeeriso Soomaali ilaah ayaa u maqan balse marka runta la eego oo aad ay u qaraartahay runta kuwan siyaasiyiinta ah ee raba in jeebkooda uu ku dhaco oo kaliya ka fikirayo kama fikirayaan wiilka yar gabadha yar iyo dadka mustaqbalkooda ay waxay ka fikirayaan shilimaadka yaryar oo ay rabaan in ay adduunka ka soo qaataan iyaguna ay si gaar u isticmaalaan caruurtoodana dibadda ay joogaan iyaguna dadkii Soomaaliyeed ay ku hoos baxnaadaan ku hoos dhintaan caafimaad ku helin 4 sano kadibna ay buuq keenaan haddaba adiga diyaar miyaa u tahay walaalkayga iyo walaashayda Soomaaliyeed xaaladan in aad ku jirto 4 sano kasta oo dhamaata oo 4 sano ay soo socoto haddii Ilaahna gaarsiiyo sidan oo kale lagu dul gorgortamo haddana qof siyaasi ah oo u dacwoodo ayaa ka dhacday oo u dacwoodo kuwa kale oo ajaanib ah oo beesha caalamka loogu yeero oo adiga wixii lagu hagi lahaa go'aanka gaaraya mise in ajiifka ka kacdo ayaa leedahay jooga oo waxaad cadeynaysaa waxa adiga aad rabto muuqaalka si gudbiya